السلام عليكم دمان داودياش halkan iga arki doona anigoo Maalika Jibril Umar waxaan halkan bogaadin iyo farxad u soo marinayaa musharaxiin madaxweynaheena Ismaaciil Umar Geelle waxaan leeyahay mudane madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ku guuleyso waxaanu caaw halkan isugu nimidnay magaalada Tilburg la yiraahdo dadka diasporaha maxay ahaydey wadanka Holland jooga ayaa caaw halkan xus بعدما كومبانيجي دورشادو bilaabmay anakuna waxaan rabnaa inaan qayb libax ka geysano oo aan madaxweynaha ku taageerno waxaan madaxweynaha taageeradeeda aan 100% ayaanu taageeradeeda aan siinaynaa taasoo waxa wacay madaxweynaheenu horumarka wadanka uu gaarsiiyay hadihin maxay ahaydey dhaqaalaha hadda waxa bilaabmaya maxay ahaydey shidaalkii soolarkii baa bilaabmaya waxa soo dhan oo dhaqaala iyo horumarina uu wadanka gaarsiiyay waxaan leenahay mudane madaxweyne noo hay waanu kula jirnaa waligaaba hay ilaahay nagama ka qaado ilaahay maxay ahaydey caafimaadka iyo kuugu deeqo maxay ahaydey aqliga wanaagsan wadanka aad ku hogaaminayso waxaan ku soo gabagabeynayaa dadkeena reer Djibouti waxa loo baahan yahay isku duubnaan waxa loo baahan yahay kala dambeyn waxa loo baahan yahay madaxda oo aanan maxay ahaydey laga hor imanin islaan ayeeyday ayaa oran jirtay intay nabadu joogto ninba laba nin leeyahay waar nabaday noo ilaaliya taas waxayd Malika oo warbixintii inoo soo sheegtay in wadanka horumar gaaray madaxweynaha diyaarnaa dib u dooranaynagu 4 sano soo socda 6 sano soo socda waayo nin walba wuxuu qabtay ayuu abaalkeeda leeyahay Ismaaciil waxa weeye waa ninkii kaliya ee wadanka halka gaarsiiyay maantana inaga ka maarmi weynay wax qabadku isma qariyo marka waxaan leenahay hambaliyo madaxweyne waan ku dooranay ma sha Allah